waaya daawada soo dhawow maxaa ka soo kordhay qorshaha cusub ee howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya imaan doona sanadka cusub ee AWSOM Masar oo noqotay dalkii ugu horeeyay ee ciidankeeda imaanaya ee kamid ah howlgalka midowga Afrika ee AWSOM ee dalka imaanaya waliba ciidankeeda ku soo daabulaysa gudaha Soomaaliya maadaama la galay sanadka cusub ee 2025 Masar ayaana qorsheynaysa in ciidamadeeda ay ku soo daabusho gudaha dalka Soomaaliya waliba dhinaca badda iyo cirkaba soo dhawow warbixintii ugu dambeeyay ee howlgalka ayaan kula wadaagi doonaa haddii ay tahay markii ugu horeysay muuqaal ku soo gaar like saar siina share garay si saaxiibada kale u gaaro dawladda Masar ayaa bilowday in ay ciidamadeedu ku soo daabusho gudaha dalka Soomaaliya walibana maalmaha soo socda ay soo gaari doonaan gudaha dalka Soomaaliya maadaama Masar ay kamid tahay dalalka kamid ah ama ciidamadeedu ay kamid yihiin dalalka Soomaaliya u imaanaya howlgalka midowga Afrika ee nabad ilaalinta u imaanaya ee cusub ee lagu magacaabo AWSOM sanadka 2025 dawladda Masar ayaana haatan waxa la sheegay in ay ciidamadeedu ku soo daabulayso gudaha Soomaaliya iyadoo ku keenaysa dhanka cirka iyo badaba si ay qayb ugu noqoto howlgalka cusub ee bilaabmaya sanadkan bilowday ee 2025 ee AWSOM golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa horey u ansixiyay howlgalkaas cusub Soomaaliya inuu ka bilaabmi doono walibana Soomaaliya ay xur u tahay walibana iyada ay u madax banaan tahay in ay dalbato wadamada kamid noqon doona ciidamada imaanaya howlgalka cusub haddii ay yihiin Burundi, Uganda, Ethiopia iyo sidoo kale Masar laakiin warar markaas soo baxay ayaa sheegaya in gabi ahaanba ciidamada wadanka Ethiopia in gabi ahaanba laga saaray howlgalka midowga Afrika walibana ay bedeli doonto ciidamada Masar ee haddan howlgalka isku diyaarinaya walibana qorsheynaya in ay Soomaaliya u soo dirto maalmaha soo socda ama bilowga sanadka cusub ee haatan la galay ee 2025 in ay ciidamadeeda soo gaaraan gudaha dalka Soomaaliya ila wareetii lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Qaahira ay haatanba sii gudo gashay qorshaheedu ku aadan howlgalka cusub ay ciidamadeeda kamid noqon doonaan in ay yimaadaan gudaha dalka Soomaaliya walibana tan ay muujinayso in ay loolan cusub ama loolan aad u culus ah ay la gali doonto dalka ee haatan xurgufka ka dhaxaysa ee Ethiopia ciidamada Masar ayaa la sheegay in ay bedeli doonaan kuwa Ethiopia oo hore ugu mid ahaa howlgaladii hore ee Soomaaliya ay u joogeen ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya u joogay haddii aan lahayn AMISOM iyo ATMIS haatan wararka ayaa inta badan waxay sheegayaan in Ethiopia aysan kamid ahayn howlgalka cusub ee AWSOM Masar ayaana bedeli doonto ciidamadeeda howlgalka cusub ee haatan ka bilaabi doona Soomaaliya haddaba sidee u aragtaa daawade dawladda Masar dadaalka ay ugu jirto in ay u noqoto dawladda ugu horeeyay ama dalkii ugu horeeyay ee ciidamadeeda haatan u soo dira howlgalka cusub ee midowga Afrika ee Soomaaliya ka bilaabmi doona ee AWSOM ee maalmo ka hor ee ansixisay qaramada midoobay taa oo ka bilaabmi doona gudaha dalka Soomaaliya walibana Masar haatan ay diyaarinayso ciidamo xoog leh si ay halkan u soo gaarsiiso haddii aan leed dhinaca cirka iyo sidoo kale badda ay ka soo galiso gudaha dalka Soomaaliya haddii uu ku soo gaaray muuqaalka like saar siina share garay wixii ra'yi iyo fikrana faalada hoose ee comment-ga nagu reeb waad ku mahadsantahay daawashadaada